magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed baa la yiraahdaa da'daydu waa 74 sano jira waxaan ku dhashay mudug baan ku dhashay gaar ahaan Gaalkacyo degmada Gaalkacyo waxaan ku barbaaray Qarqoora xilligii 72 oo ololaha dawladda Maxamed Siyaad Barre ay ololaha keentay baan waxaan ololihii ka galay meel yar Bitaale oo 14 kiiloomitir noo jirto waqooyi naga xigta waqooyi bari naga xigta ololahaas qoraalkiisa waa ku guuleystay ka bacdi waxbarashada ma helin intii maartay sanado badan oo adigu aan yarayn qalalaase iyo burbur iyo waxyaalo badan baa jiray oo dalka ka jiray muddo laga joogo adigu 2013 yaa meeshan waxaa laga furay dugsi koobaad laga bilaabay macallimiintii markaas joogtay markii oo imtixaan iga qaadeen waxay iga bilaabeen saddexaad adigu ilaa 8aad baan gaaray macallinkii meesha dugsiga ka dhigayay wuxuu ii diyaariyay noo diyaariyay aniga dad kale oo arday in aan Gaalkacyo imtixaan ka galo dugsiga dhexe 2020 imtixaankaas 4 maalmood baan waxaan uga jirnay dugsiga Cabdullaahi Ciise ka bacdina waa la soo gabagabeeyay galabta maalintii ugu dambeysay markii xigtay oo mataqaanaa waxaa la ii soo sheegay in imtixaanka inaan ku guulaysto dadka ku guulaystay aan ka mid noqday waxbarashada horta waa qaali aniga nafteeda waxay ila ahayd qaali oo markaan arko buug meel yaala ama qof dhiganayo ama qof akhrisanayo waa fiirin jiray bal inaan xaraf ka fahmo waxaan ogaaday waxbarashadu inay qaali tahay anigana ay anfacayso dadka kale oo Soomaaliyeedna anfacayso oo qofkii wixii aan aqaan i weydiiyay aan uga jawaabayo ilaa waxa saas weey saas ay ugu dhalisay dadka deegaanka markii magaalada raashin ay uga yimaadaan war magacaan ii fiirinayo inta la ii yeero dadka qaariyo war maxay ugu fiirinaysaa anigu oran jiray war waa u fiirinayno magac waa qaane hebel baaliyaan oran jiray magac kan wada iskala waxaan laba sidood biyo arki jireen dad kale oo maartay waxbarashada ayagu aan shaqo walba ku lahayn waxay oran jireen ninkan muxuu ka doonayaa meesha biidood dadka kale waxay yiraahdaan maxaa ka doonaysaa niyo amrikaaga waa dhamaysatay waa waqti waxa ku haro anagu hadda garan mayno bay oran jireen laakiin gabdhuhu ma faragelin jirin habay ma oran jirin anuguna wax kasta ay yiraahdaan waxbarashada waa sii watay waana ku guuleystay dugsiga dhexe anigu horta mataqaanaa dugsiga sare kulli qarash baa la isaga bixinay magaalada Gaalkacyoodna anigu deegaanku meelihi guri ku meelihi mushaar ma qaato sida badan hay'adaha mataqaanaa samafalka oo meelaha yimaada baan mar xoogaa ka helayo adigu waxaan ama mara ku gato ama shaah kala baxo ama buug ku gato haddii maartay meelahan yadaan wax ka korkorsanahay haddii dugsi sare mataqaanaa laga furo deegaanka aan joogo Qarqoora waa tijaabin lahaa meel kasta ay la gaartay inaan waxbarashada sii wato ma inaan macallin noqdo waxa igu dhashay deegaanka horta wuu u baahan yahay markii laba macallin ay joogaan ama 3 ama mid kaliya uu joogo dadka yararka oo da'yarta markaas yimid baa waxa la yiri mataqaanaa war u dhigo macallinta taa kule horta taas ay igu dhalisay waxaan bixiyaa Arabiga bahalkii ay sheegay mataqaanaa Soomaaliga iyo xisaabta inteeda waaweyn oo hore bilowga ah iyo cilmiga bulshada waxaan siiyaa fasalka koobaad iyo midka labaad iyo kan saddexaad iyo kan afraad mataqaanaa waqtigu ii masaabaxo haddaanan meel kale u wareegin ama waxbarasho kale aadin ama wax kale ugu imaanin waxaan jeclahay inaan waxbaridda sii wado ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in mataqaanaa ay waxbartaan ama ha yaraado hase weynaado hadduu caafimaad qabo inuu waxbarto oo heli karo inuu waxbarashada u heli karo mataqaanaa taa kula u heli karo